waa tabinta labaad ee kulamadii kala duwanaa ee Muqdisho ka dhacay tan iyo markii la saxay heshiiskii doorasho 27 May. Tabintani waxa ay ku wajahan tahay shirarka loogu magac daray danta Koonfur Galbeed oo ay horboodayeen maqaamiirta ka soo jeeda deegaanadaasi. wixii looga hadlay iyo qodobadii kala duwanaa ee dhinacyadu ay isku afgarteen ayaanu soo koobi doonaa. shirka waxa budigo waxa gudoomiyihii hore Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah waaye arag soo shaqeeyay qalaylka iyo qoyaanka soo taabtay. waxaa ka qayb galay badi siyaasiyiinta Koonfur Galbeed. madasha waxaa joogay Madoobe, Mursal, Shariif iyo Lafta Gareen oo ah dhammaantood ragga hoggaanka u wada qabtay baarlamaanka iyo deegaanka Koonfur Galbeed. laba shir oo dhacay ayaa kan hore ahaa isfaham, calool xaarid iyo soo bandhigista qorshe midaysan oo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ee ku aadan arrinta siyaasadeed ee Soomaaliya. kulamadu waxa ay ka dhasheen laba aragti oo kala ahaa. waa tan koobaad ee aqbalaad ka timi Shariif, Madoobe iyo Jawaari oo garowsaday in matalaadooda Koonfur Galbeed aan laga colaadin lagu takoorin. saddexdan siyaasi waxa ay gaarsiiyeen ama aqbaleen tallaabadaasi markay arkeen in beelaha la wadaaga federaalka ay danaha reerahooda ka midaysan yihiin balse aragtida siyaasadda oon lagu kala gedisan yahay. waana keentay baraaruga waqti dambe yimid oo raggani ku aqbaleen labada qodob. qodobka hore waxa uu ahaa inay raaligelin ka bixiyaan xurgufta kala dhaxaysay Lafta Gareen oo ay ku codaaliyeen kursiga iyo aragtidiisa la shaqaynaysay fiila Soomaaliya. waa tan labaade inay ugu dambayn ay aqbaleen maamulkaas. isturxaan bixin iyo kala bogasho badan kadib waxaa dhacday martiqaadkii Mursal fidiyey waxaana la isku soo qaaday in ficil loo bedelo aqbalaadda timid kooxdii diidaneed Lafta Gareen. intii kulanka lagu jiray waxaa la isla meel dhigay kulamo kale oo ka dhaca Muqdisho iyo Baydhabo. sidoo kale mabaadi'ii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa asaasidda xoog siyaasadeed oo ka hadla danta Koonfur Galbeed. waxaa la saaray guddi ka shaqeeya marxaladda kala guurka ah, kala xodxodashada xilalka sare, jiheeyana inta badan codadka Koonfur Galbeed si loo helo danta Koonfur Galbeed oo midaysan. laba in si furan siyaasiyiintu u difaacaan Koonfur Galbeed maamulkeeda si la mida maamulka uusan colaadsan aragtiyaha ama dhaliilaha siyaasiyiinta ka soo horjeeda una arko oo kaliya in siyaasadda la isku hayo. saddex ka jawaabidda xaaladaha bini'aadantinimo ee deegaankaasi dul hoganaya kuwaasoo sanooyin dheer taagan. magaalooyin badan ay cunaqabatayn saareen kooxaha xag jirka ah una muuqdaan kuwa xaalad adag ay ku sugan tahay. afar in federaalku yahay madba asaasi oo aan gorgortan lahayn. Koonfur Galbeedna ay waqti badan geliso sidii arrintaasi ay u noqon lahayd mid laba taabtaan ah. ka sako qodobada asaasiga ah waxaa dhinaca kale la isla soo qaaday aragtida kala guurka ah. kaftan kadib waxaa la xal waraystay kooxaha diidan ama aaminaad laantu hayso waxaana loo sheegay in Shariif Xasan Sheekh Aadan sidii uu wax u maamulay wax ka badan uusan samayn doonin Lafta Gareen. kuraasta baarlamaankuna ay la mid tahay ama la marin doono wadiiqadii uu mariyay Shariif Xasan ee soo saaridda dhinacyada siyaasadda ah. reer Koonfur Galbeed waxa ay isku canaansadeen intii kulanku uu socday inay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda mucaarad iyo muxaafid. waxayna gartu noqotay in laga shaqeeyo halka danta Koonfur Galbeed ku jirto. waxaa kale oo soo baxaya in kulanka siyaasiga rugcadaaga ee Shariif Xasan Sheekh Aadan laguna magacaabo ama siyaasadeeyo Shariif Sakiin uu dalbaday in lagala shaqeeyo madaxtinimo balse arrinkaasi waxa looga hadlayaa kulamada soo socda sida ay caddaynayaan ka qaybgalayaasha kulanka. gabagabada waxaa cimaamad la saaray Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. waxaa laga dalbay inuu dhammaystiro kulamada kale ee lagu ballameen loona arko oday geed fadhi siyaasadeed ah oo wax badan ka soo shaqeeyay xaaladda Soomaaliya kala garanaya qalaylka iyo qoyaanka ama dhinaca ay tahay siyaasadda in loo jiheeyo. ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culumta kale Islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.